agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Jubbaland mudane Nuur Cumar Shaale iyo agaasimaha dakhliga Sakariye Cabdi Cali oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo markii ay yimaadeen waxay qaybta VIP ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kulan kula qaateen marayaha guud ee garoonka diyaaradaha Cabdirasaaq Aadan Inshaar iyo taliyaha amniga garoonka gaashaanle sare Maxamed Xayi Axmed Badar. Kulanka ayaa daaranaa is-xog waraysi iyo kala warqaadasho ku saabsan howlaha shaqo iyadoo labada agaasime ay warbixin guud ka bixiyeen howlihii rasmiga ah ay ugu maqnaayeen dalka Kenya kuwaas oo la xiriiray arrimaha horumarinta nidaamka maaliyadda iyo dakhliga dowladda Jubbaland. Dhankooda taliyaha amniga iyo marayaha garoonka diyaaradaha ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan howlaha amniga iyo shaqooyinka maalinlaha ah ee u dambeeyay iyaga oo tilmaamay inay guulo la taaban karo ka gaareen kordhinta nidaamka iyo adeegyada garoonka. Si guud kulanka ayaa ahaa mid ka mid ah kulamada joogtada ah ee ay isdhaafsadaan mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo maamulka garoonka diyaaradaha Kismaayo si loo wada xoojiyo wada shaqaynta iyo isfahanka guud ee hay'adaha dowladda Jubbaland.